Barashada tisqaadka iyo calmashooyinka harayo adigoo u ciil qaba, heerkoodu guurtay caadada iyo dayaxa guud, midunbaa cagaha iyo cawgaha ku qabanoo guusha caadadeediyo waa calaamadeedu way cadaawo badan tahe, caqliga iyo garaadka iyo cilmiga iyo aqoontii geedigaaga kuu cugay, kaga gudub canaadka iyo casharkaa ku haysto, qof weyn oo ciyaaliyo garashada dad caami cayday ku leeyihin, wakhtiyaani kaa cun. waa horayga dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal, waa mar kaliya muuqaal cusub. Sidee u gaari kartaa guusha? Guusha ugu weyn ee qof gaadho waa isbeddelka uu ka gaadho naftiisa iyo noloshiisa. Si aad u gaadho isbeddel, samee qodobadan aan kula wadaagi doono. Meel fadhiiso, kana fikir waxqabadkaaga iyo horumarkaaga iyo halkaad marayso. Xisaabi, iskana warhay. Noqo qof markasta iyo meel kastuu joogo runta ku dhaqma, daacadnimo, deeqsinimo, jacayl. Waxaad noqonaysaa qof la jecel yahay. Doonistu waa furaha wax kasta. Haddii aad weydo waxaad doonaysay samayso, si kastood u hanan karto himiladaada. Ku dadaal wax kastoo dan u ah naftaada iyo horumarkaaga, adigoo ilaalinaya diinteena suuban iyo xuduuda Ilaahay. Ilaali waajibaadka Alle. Maalin kasta waxaan maqalaa liibaanta u kaalaya 5 waqti. Haddaanad ka jawaabin wax kalena qabsan maysid, waayo salaad la'aan waa nolol la'aan. Samraasadkii helaa, noqo qof wax kastoo samra. Haddii aad istiraahdo wax kasta qasab ku gaadh, adunba iska daali. Samir si aad u gaadho waxaad rabto. Noqo qof jadwal leh iyo go'aan iyo qorshe. Cilmiga dalab, waayo cilmigu waa caqli beeray. Ogow ceydh ka weyn ma jirto qof caqliga ceydhka ah. Muhiimaddu waa inaad wax akhrido si aad caqligaaga ugu biiriso caqli kale. Gabagabadii gunaanadkii daawada waxaad sunaataa xigmadda odhanaysa ku samir waxaad neceb tahay si aad u hesho waxaad jeceshahay. Assalaamu calaykum waa waraxmatullaahi. horayga dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed.